السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي قال كسر وهذا مركلي علمي تك دي قناة كعصبتها سبسكرايب توقل فيديو لايك ده سينا شير كريسي وقارو أصحاب فربنا مرة قارو واحد عادين كمبيوتر كاجا علت كنت ما داسوا أي كمبيوتر تدا تفربنا علت داسنا أي كنتو إن كمبيوتر كاجا عاد فلاش كريسيد أما عاد بوت كريسيد أو ويندوز كلا بدلو هدي كمبيوتر ويندوز كلا بدلنا سيدان أقولنا هاي waxa ku jira dhan waa ay baxayaan maadaama ay Windows-ka iyo data isku meel ku wada jiraan. Hadaba video-gan gudihiisa waxaan kugu tusi doonaa qaab ay data-da kugu badbaado. Qaabkaas oo ah in aad samaysatid hard-disk-kaaga aad ka dhigatid 2 ama 3 ama 4 oo midna aad data-da ku shubatid midka Windows-ka oo ku jirana aad waxba ku shuban si haddii uu computer-ku ka halaabo aad hard-disk-kaas oo Windows ku jiro aad u flash gareysid data-dan kalena kugu badbaado. ilaawin in aad video-ga like gareysid sina share gareysid si u gaar asxaab badan. Taba asla socono. Waxa ku muuqata in uu yahay local disk C oo kaliya oo wax kale aysan ku jirin. Kan DVD waa iska dhaaf marka wax kale ma ku jiraan. Marka waxaad doonaysaa midkan inaad qaybisid oo aad 2 ka dhigtid ama 3 ama 4 hadba wixii aad jeceshaad ka dhigatid. marka aad doonaysid in aad qaybisid hard-disk-kaaga ama partition ku samaysid waxaad samayn doontaa meeshan search-ga ayaa waxaad ku qori doontaa partition ayaad ku qoraysaa. partition marka ku qortid waa kana waxa ku soo bixi doona halkan create and format hard disk partition. halkan ayaan double click ku dhufan doonaa. double click marka qorto waa kana Windows kan kala ayaa soo baxday daaqadan kala ayaa soo baxday marka sidaan weeyaan meesha u socono si marka mar walba si waxa meesha ay si ku qoranta waxa weeyaan waa midka oo computer ku yimaado diska computer ku yimaado oo Windows ka iyo wax walba ku jiraan waaye oo main hand diska. marka right click ayaad ku dhufanaysaa right click marka ku dhufatid shrink volume ayaad ku soo dhufan doontaa. meeshan waqti ay qaadan doontaa ayaa marka halkan ayayna keentay meeshan waxaad qori doontaa numberka arabtid in hard-disk-ka samay doontid oo la ekaado inta doonta ayaad ka dhigi kartaa. aniga waxaan ka dhiganaa 5GB oo kale aan ka dhiganaa marka MB ahaan waaye marka xisaabtan hadir MB ahaan waaye marka GB waxay noqon doontaa 5000 waa 5GB 5GB ayaan ka dhigaa marka waa ku sii dhufan doonaa. iyadana sidoo kale wax yar ay qaadanaysaa. hadda marka waa kana waxay ii noqotay waa kana 4GB 88 waa iska 5GB oo kale. marka waxaad samayn doontaa kan ayaan right click ku dhufanaa asna new symbol volume ayaan ku sii dhufan doonaa. halkan ayuu ku keena next ayaad dhigi doontaa. kana 5GB weeyaan lagu dhahay diyaar ma u taawiyaan yes next ayaa sii dhigi doontaa. meesha marka xarfaha marka xarafka doonta ayaad ka dhigi kartaa. F ayaan ka dhigtaan next halkan ayuu kan magac ayaad ula bixi kartaa. marka meeshan magac ayaad ula bixi kartaa magac doonta ayaad ula bixi kartaa oo hard-disk-kaas oo kugu aad ugu aqoonsid kuwa kale. next ayaan sii dhigi doonaa finish. waa kana hadda waa dhamaysan yahay hard-disk-kii waa igu jira meesha. haddii aan taga marka aan fiirsho wax u samaysmeen this PC ayaan ku dhufanaa. waa kana marka local disk oo CG waa kii oo waa kaasada calaamad xagga ka muuqata Windows oo soo muujidid meeshaas Windows-ka ayaa kan ku jira. kii cusbaana waa kana marka cusbaan soo samaystay waa kana kan weeyaan marka haddii aad doonaysid in aad iska dileedid ayadana waxaad samaynaysaa isla meesha ayaa tagi doontaa oo waxaad ku qori doontaa partition-kii isla partition ayaa ku qori doontaa. marka create and format hard-disk partition ayaad ku dhufanaysaa. noo kana kor ayuu ka soo baxay waa kana midkan example kan oo kale ayaa rabta inaad dileedid waxaad ku samaynaysaa
right click ayaad samaynaysaa kabacdina delete volume kana day doontaa yes ayaad dhahaysaa hadda waa kana sidan ayuu noqday laakiin weli space waa naga haystaa marka waxaan sameynaynaa kii kan ayaan tagaynaa right click ayaan ku dhufanaynaa extend volume ayaan dhahaynaa volume waa kana dhag ayaad ku sii doontaa waad ku sii dhufanaysaa waa kana marka hadeertaan waa si hore ayuu kusoo laabtay waan filayaa fiidiyogan inaad waxun ka faa'iideen haddii aad waxun ka faa'iideen sii share garay oo la wadaaga saaxiibadiina si ayagana wax uga faa'iideen fiidiyogana like ku dhufo